dugsiyada al irshaad schools qiimaha iskuulada miqyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowro quman oo kalaasada qaybiba ay meel tahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوانا حسين ومركلة يا عشرة أونلاين كوب حي جريد 1 كا أيون ماركت 10 دي سويان ومادة في صوماليا وأنا 10 كاني لبعض أردي سيدين هراء صور دجاني وحنا صور دجاني رواقة شقلة وحنا سوق هذا الشقلك وحنا دجاني أفر إري أو كبلا ما شقلك أردي askari iyo awr in yar haddii aan idinku celiyo arday waxaanu nidhi waa ardayda iskuul dhigata laba dhawaaq way yeelan kartaa waa arday hal arday iyo arday badan marka waa isku dhigid kala dhihid af waxay noqon kartaa mar afkan aan idinkula hadlayo afka aynu ku hadalno afka aynu wax ku cunno marna waxay noqon kartaa af waa wax dad isku afkartaan tusaale ahaan af Soomaali waxay dad isku afkartaan askari waa askariga caadiga ee ciidamada ka tirsan askari awr geelakiisa labna awr baa la yiraahdaa intaas waa intii aynu hore ardayay aynu soo qaadanay intaas waa casharkii hore haddii aynu maanta bilowno casharka maanta waxaynu dhiganaynaa waa dhawaaqii shaqalada baynu dhiganaynaa shaqalka baynu dhiganaynaa shaqalka shaqaladu waxay ahaayeen 5 shaqal a i o u shaqaladu 5 ayay ahaayeen hore waxaynu u qaadanay shaqalka a maanta waxaynu qaadanaynaa shaqalka marka waxaan isku dayayaa waxaynu sharaxaynaa afartan erey baynu sharaxaynaa waxa weeyaan waa edeg waxa la yiraahdaa xeradu markay saa u oodan tahay xero yar baa laga dhex oodaa xerada yar waxa lagu xereeyaa maqasha xoolaha dhashooda xoolaha yar yar baa lagu xereeyaa sababta loogu halka xoolihii yar yar baa loo oodaa marka waxa la yiraahdaa edeg waxa la yiraahdaa edeg halkan xoolaha waaweyn baa lagu xereeyaa halkan xoolaha waaweyn baa lagu xereeyaa arday laba arrimood ba halka looga dan lahayn xoolahan gaar loo xoreeyo mid waa mid waxa la ilaalinayaa xoolahan yar yar si ayna kuwan waaweyn ugu joogsan mid kalena waa la ilaalinayaayo waxa weeyaan in aanay jiqin macnaheedu caana la doonayaa aroorta in laga maalo habeenkii waxa halka loogu xareynayaa si aanay u jiqin xoolihii oo aanay caanihii uga jiqin hooyadood marka ereygaas waxa weeyaan waa edeg tan waxa weeyaan waa xayawaankan eyga la yiraahdo in yar baa arday doonay halka inaan idin sheego diinteena islaamka waxay nafaraysaa in aynaan xayawaanka dhibaateyn oo in xayawaanka aynu ilaalino tusaale ahaan eyga had iyo jeer waxaad ku tuurtaan maaragtay dhagax siibaynamada iyo bisadaha inaynu xayawaanka ilaalino inaan wax dhibaato u geysan marka waxay saas ugu dhawaaqmaysaa eber laba macno way yeelan kartaa eber waxay noqon kartaa waxba meel maran tusaale ahaan waxaan ku yiri telefoonkaaga ii dhib deedna waxaad ku tiri waa eber macnaheedu waxba kuma jiraan wax lacag kuma jirto midna way noqon kartaa eberkii xisaabta 0 af Soomaali wuxuu ku noqonayaa waa eber waxba eber tan waxa loogu dhawaaqayaa eebo haddii halkaas ka noqoto macnuhu isbedelaya eebo waxa weeyaan waa waran yar weeyaan eebo waa waran yar baa eebo la yiraahdaa eebo waa waran aad u yar eebo ama hooto labada macnaba uu leeyahay eebo arday waxaan imka casharkii baynu akhriyeynaa waad iga daba akhriyeysaan edeg eber
ba o waa shaqal dheerde ba o eebo edeg eber eebo arday haddaynu soo gabagabayno sharxii casharka waxaynu nidhi edeg waa edega xoolaha macnihii xoolaha yaryar maqasha xoolaha ayaa lagu xereeya waa xero yaroo gaaroo maqasha xoolaha lagu xereeyo waa xayawaanka eyga la idhaahdo eber waa meel madhan ama tirada xisaabta zeroga loo yaqaano eber eebo waa waran yar ama hooto eebo waa waran yar intaasi waa casharkii maanta ayaa intaa inoogu dhammaaday ardayay waxaan rajeynayaa inaad si fiican fahanteen haddii ilaahay idmo intaa ay mastaradu maraysana waad feegaraysaan afartaa erey edeg eber eebo afartaa erey si fiican arday ma u aragtaan buuggiinaad ku qoraysaan hal bog oo buuggaaga ka mid ahna waad ka feegaraysaa intaa waxay noogu dhammaaday sharaxa cishadii hore waxaan isku dirnay afar erey oo ku bilaabma xarafka a maantana waxaan isku daraynaa layligan waxa weeyaan qor afar erey oo ku bilaabma shaqalka qor afar erey oo ku bilaabma shaqalka marka afartii ereyna waad qoraysaa fiiro gaara afartaa erey yaana kuwan la mid noqonin ha ka duwanaadaan edeg eber eebo afartaa midna yaanay noqon waa afar aad adigu keento casharkeeni maanta intaasuu inoogu dhammaaday aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rajeynaya inaad soo feegartaan inaad layliga ka soo shaqaysaan wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dugsiyada al irshaad schools qiimaha iskuullada miqyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowro quman oo kalaasyada qaybiba ay meel tahay